ما dhici karto doorasho hal qof iyo cod wadanka hadii la isku dayana international community-gana ay riixaan oo ay ku barashar gareeyaan ma sameyn karaan laakiin waxay doonayaan inay u sameeyaan hadda ka hor aan soo jeedina anaga 2014 anagoo dad mutacalimiin oo wadanka u fakaray ah habkaas laakiin waagi xasan sheekh aan islaam uu shaqeynaya oo dawladda hore waxay la heshiisay moogtahay maamuladii Jubbaland iyo galmudug iyo hirshabelle ayadaaba dhistay labadaas iyo South West iyo Puntland watay xiriir fiican ula lahaa laakiin hadda maamul goboleedyadii ayaga maadaama ay soo kala taagan yihiin habkeenaas wuxuu ahaa in magaalooyinka maamul goboleedyada caasimadaha u laga qabto doorasho oo ay xildhibaanada meesha lagu doorto oo qof iyo cod looga doorto iyo dadkii ka yimid tuulooyinkana ay ku codayaan for example hirshabelle oo kala beledweyne iyo jowhar iyo balcad iyo hadii laga dooran karo meelihii shabaabka haysto waa haystaan marka Puntland sidaas oo kale garowe iyo qardhe iyo in laga doorto iyo boosaaso laakiin galmudugna la mid iyo Jubbaland laakiin ma dhici karta hadda waxay ku dhici karin dawladda maanta jirta xiriir fiican lama laha maamul goboleedyada way kala shakisan yihiin oo waxay dagaal ku bilowday inay maamul goboleedyada meesha ka rido oo dagaal ku qaaday waa la kala shakisan yahay say rabto meesha kama fulin karto waxay u socotana qof walba Soomaaliya waa u cad yahay oo aynay kursi ku soo noqoto dan Soomaali lagama shaqeynayo waa in xildhibaano ayada ay wadato ay meesha geysato marka doorasho qof iyo cod ma dhici karto sida lagu sameyn karana waa adkaanaysa systemkana lama bedeli karo oo baarlamaankii bedeli lahaa wuxuu noqday rubber stamp oo sharci cusub sameyn lahaa marka si ayaga u danaynaysa haday yeelaan waxay horseedi doontaa aniga yani saadaashayda waxay horseedi doontaa uprising oo kacdoon shacbigu kacdoomo oo uu la diriro waxan isku dayo shacbigu intuu kaco inuu heriyada iska qaado marka taasna waa halis weyn oo Soomaaliya dawladnimadeeda ay gelinayaan dadku waxay u qaateen inay tahay dadkii wax karbash wax lagu marin karo waana arin halisteeda leh mana shaqeynayso doorashada horta waa inay dhacdaa oo sidii hore ku dhacdo hybrid systemka ay ku noqotaa 2020 na 6 bilood u dambeysay 2021 February waxa ku eg waqtigii la doortay madaxweynaha hadda jira 8 February 2017 marka cid u kordhin karta oo sharciyad ay u kordhisa leh ma jirto oo international community wadanka uu ka baxay transitionki ay UN to ayada waqtiga kordhinaysa sida waagi Augustin Mahiga hadda waxa la joogaa waqti ay ahayd in ay kala madax banaanaadaan garsoorkii baarlamaankii iyo qaybta fulinta laakiin taliskan cusub ee hadda yimid ayaa wixii oo dhan jaabka gashaday waad ogtahay speaker inay ayaga marna saaranayaan martu ciirinayaan garsoorku wuxuu iska noqdo wax la ciirinayo la soo gelinayo garsoor madax banaan ma jiro waxa isku milmay xukuumadii oo qaybta fulinta ahayd iyo madaxtooyadii iyo garsoorkii baarlamaan hadda shaqeeyo oo meel fadhiyo oo shacbigu eegayo oo dawladda la xisaabtamay xukuumadii ma jiro garsoor ka madax banaana ma jiro marka way adag tahay in waqti la kordhiyo dadkuna ma yeeli doono dadku rajul ahaa aad baa loo soo dhaweeyay xukunka maanta jira aad baa loogu soo baxay meel walba Soomaalida waxa loo arkay xukun Soomaalinimo kala weyn tahay kursi shakhsi iyo dan shakhsi ayaa loo maleeyay oo imagination ay dadku aaminay laakiin dadka Soomaaliyeed waa dad wax badan leh waa dad garasho badan leh waa dad aan fahamkooduna aad u fiican yahay isla markaa wax u fahmayaysan wax barasho badan lahaan laakiin dad la qaldi karo la indhasar caadin kara ma aha